xigmadda iyo awoodaha alle uu Ilaahay u gaar yeelay noolo kasta waa mid cajiiba. Ma ogtahay daawade in noolo kasta uu la gaar yahay habnololeed u gaara. Tani waa xariiqda aanay cidina ka gudbin ee u dhaxaysa jasiiradaha kala qaybiya jasiiradda Bali ee waddanka Indonesia iyo Philippines. Waa xariiq aanay xayawaanka xamaarta mid afartaba ku socda iyo mid hawada duulaatoona ka gudbin. Maxaa sababay baad u malaynaysaa? Xariiqdani lama arkaanka waxa ay laba gobol cimiladu qaybisa. Jasiiradaha ku yaal labadani dal oo haddana xuduud wadaag badeed ah. Noolaha ku nool gobol cimileedka raacsan qaaradweynaha Asia waxaa ku nool xayawaano uu jaadgooni leh gobolkaasi, halka kaga soo horjeedaana ay ku nool yihiin xayawaano uu la gaar yahay gobolkaasi. Haddaba maxay tahay xariiqdani aanay cidina ka gudbin? Labadani gobol cimileed ayaa kala ah. Waa midka koowaad ee waxa uu cimil ahaan iyo juqraafi ahaanba raacsan qaaradda Asia, kaasi oo aan la dabeecad ahayn mid kaga soo horjeeda ee ay xariiqdan lama arkaan tahay kala qaybsay, kaasi oo raacsan qaaradda Australia. Inkastoo ay jasiiradahan isu jiraan wax ka yar 430 kilomitir oo biyuhu u dhaxeeyaan, haddana waxaa cibaaro iyo layaab ah in xayawaanada ku nool labadani deegaan ay aad u kala duwan yihiin, kuwaas oo midba la qabsaday deegaan gaara. haddii uu ka gudbo xadkiisana aanu la qabsanayn ama aanu ku noolaan karaynin cimilada aanu xeerdhalinkeeda ahayn. Xataa kalluunka biyaha ku jira ayaa ka gudbin xariiqdani, sababtuna waa in xataa labada badood ay kala xajmi, dhanaan iyo heerkulba duwan yihiin. Waa xigmadda alle ee cajabta badan inuu noolo kasta la gaar yahay xaalado gaara.